السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد arday 10 شناد Preb-Beginner هرك لبعض Kasmo Acadamy. maanta waxaan qaadan doonaa laba shay ama waxaan tilmaami doonaa labadan guri farqiga u dhaxeeya anagoo isticmaalayna waa maxay has got iyo hasn't. Has got iyo hasn't. Okay, has got waa maxay leeyahay, hasn't malaha. Has got leeyahay, hasn't malaha ama aan lahayn. Okay, so waxaan doonayaa house A iyo house B waxay ku kala duwan yihiin. Okay, let's start with the first one. Difference u dhaxeeya waa maxay? House A has got what? Alright, house B has 2 bedrooms. House B has 2 bedrooms. Okay, it has got 2 bedrooms. It has got 2 bedrooms. Okay, it hasn't 2 bedrooms. Okay, it hasn't 2 bedrooms. It has got 2 bedrooms. It hasn't 2 bedrooms. Okay, farqiga kala u dhaxeeya muxuu noqon karayaa labadan guri. Okay, aan sii wadno. It has got 2 bathrooms. 2 bathrooms. 2 bathrooms. Wuxuu leeyahay laba xamaam oo lagu meedho soo maaha. Okay, this kan wuxuu leeyahay mid qora soo maaha. waxaan leenahay it hasn't 2 bathrooms. kan xabad qoruu leeyahay xamaamada lagu meedhaa. It hasn't 2 bathrooms. Okay, kan wuxuu leeyahay maxay 2 toilets. buu leeyahay laba suuliyo kuwii caadiga ahaa buu leeyahay soo maaha. kanna xabad kaliya leeyahay. waxaan leenahay it has got 2 toilets. It has got 2 toilets. It hasn't 2 toilets. It hasn't 2 toilets. It hasn't 2 toilets. Okay, house number A, it has got a sofa. It has got a sofa. Sofa waxaa la yidhaha kursigaas ku dhigan ee dheer ayaa la yidhaha sofa. saddex qof inay ku wada fadhiistaan loogu talagalay. Okay, wuxuu leeyahay it has got a sofa. wuxuu leeyahay sofa ama kursiga dheer ee loogu talagalay dadku inay saddexda qof ku wada fadhiistaan weyn. kan ma laha soo maaha. waxaan leenahay it hasn't a sofa. It hasn't a sofa. Okay, so waxaan practice garaynayno maanta waxay tahay oo maxay has got oo ah leeyahay, wuxuu leeyahay, iyo hasn't oo ah malaha. Okay, number 1 waxaan ka bilowno maxay aqal B wuxuu leeyahay waa maxay laba qol oo jiifa soo maaha. laba qol oo jiifa ayuu leeyahay. waxaan niri it has got 2 bedrooms. It has got 2 bedrooms. wuxuu leeyahay laba qol oo hurda. Okay, kanna waxaan leenahay maxay laba qol oo hurda muu leeyahay. No, it hasn't 2 bedrooms. It hasn't 2 bedrooms. malaha laba qol oo hurda yani ama laba qol oo jiifa. Okay, kan wuxuu leeyahay niri laba xamaam oo lagu meedho soo maaha. laba xamaam oo lagu talagala meedhashada. Okay, waxaan leenahay it has got 2 bathrooms. It has got 2 bathrooms. Okay, kan mala soo maaha. kan xabada qol kaliya leeyahay. Okay, waxaan leenahay maxay it has not or it hasn't 2 bathrooms. It hasn't 2 bathrooms. kan waxay noqonaysaa it has got 2 bathrooms. laba xamaam buu leeyahay. kan wuxuu noqonayaa maxay it hasn't 2 bathrooms. Okay, marka difference-ga saddexaad ama wax kale kala duwan lagu guro maxay kan wuxuu leeyahay laba xamaam soo maaha markiisa caadiga ah kuwii caadiga loogu talagalay ahaa. waxay noqonaysaa it has 2 toilets. It has got 2 toilets. It has got house A. It has got 2 toilets. wuxuu leeyahay maxay laba suuli oo kuwii caadiga ah.
kan laakiin xabad kaliya leeyahay waxaan leenahay ma it hasn't two toilets. It hasn't two toilets. It hasn't two toilets. Okay, kan wuxuu leeyahay kursigii dheeraa ee sofa ahaa ee dheeraa waxaan leenahay maxay it has got a sofa. It has got a sofa. Okay, kan wuxuu noqonayaa maxay it hasn't a sofa. malaha kursigii weynaa ee dadku ku wada fadhiisanayeen. Okay, qaybta koowaad cashirkeena xagga soo naga baxaynaa. Okay, xaggan waxaan sameynaynaa maxay waxaan qaadanaynaa there is iyo there are. There is iyo there are. Okay, maxay kala duwan there is iyo there are? There is iyo there are waxay kala duwan maxay? There is waxaa loo isticmaalaa markaad shay qura aad sheegayso. There is xaggan waxa yaala. There is waxa yaala ama waxaan xaggan yaala a book on the table. Book ayaa saaran miiska. Book kaliya ayaa saaran. Okay, a book, one book. Okay, laakiin there are waxaan isticmaalaa maxay jamac shayga markuu jamac yahay. There are two books. waxaa haysanaa ama waxaa saaran miiska two books. There are two books on the table. There are two books on the table. Okay, miiska waxaa saaran laba book. Okay, aan ka kalan wuxuu ahaa maxay there is a book on a table. Book qura ama kaliya ayaa saaran miiska. Okay, so there is waxaan isticmaalnaa singularka. There are waxaan isticmaalnaa pluralka. Singular waa maxay mufrad ama shay kaliya. Kana waa jamac. Waa jamac. There are jamac weeye. There is waa singular ama mufrad. Okay, eeg haddana waxaan haysanaa maxay there is a pen in the box. There is a pen in the box. Alright, qalin ayaa ku jira boxka. Hal qalin xabada kaliya. Okay, kuwana badan yihiin waxaan isticmaalaynaa maxay haddii ashyaadu badan yihiin. There are three pens in the box. There are three pens in the box. Okay, waxaa ku jira saddex qalin. Okay, saddexdu waa jamac wayna ka badan yihiin xabad. Okay, waxaan sameynaynaa xaggan fill in the blanks. Fill meelaha banaan buuxinaynaa. There is iyo there are. There is iyo there are. Okay, markaan ku buuxinaynaa there is iyo there are maxaan eegaynaa marka? Waxaan eegaynaa waa maxay shaygan aan tilmaamayno ma jamac baa mise waa mufrad ama waa xabad kaliya. Okay, ka koowaad aan ka shaqeyno aan dharaano. Okay, a small kitchen. Kitchen waa xabad kaliya soo maa waa hal kitchen kaliya soo maa maxay noqonaysaa maxay there is a small kitchen in our house. hal kitchen oo yar ayaa ku taala gurigeena. laakiin xagga waa maxay two labo markuu shaygu laba yahay muxuu noqday jamac soo maa. Okay, jamaca maxaa isticmaali jirnay there are صح. Okay, there are two beds. waxaa ku yaala laba qol laba sariirood ayaa yaala in the bedroom. laba sariirood ayaa yaala qolka hurdada ama the bedroom. Okay, there are two beds in the bedroom. laba sariirood ayaa yaala qolka hurdada. Alright, books wuxuu wataa s mar walba waxay indicate garaysaa maxay ama ay notisaa inuu sheegan yahay jamac soo maaha. So jamac markuu yahay waxaan isticmaalaynaa there are books. There are books. buugaag ayaa saaran miiska. buugaag ayaa saaran miiska. Okay, a large bathroom in our house. xamaam weyn ayaa ku yaala guriga. Okay, maxay noqonaysaa there is because like hal xamaam s ma wato lambarna xagga hore kama wato.
okay s ma wato lambar 2 iyo 3 iyo wixii ka badan ma wato soo maaha so la haduusan s wadan lambar weyn uusan wadan lambarna xagga hore uusan ka wadan shaygu wuxuu noqonayaa maxay singular ama waa keli there is a large bathroom in our house waxaa ku yaala xamaam weyn gurigeena kittens waxaa la yidhahdaa bisadaha yaryar markay yaryar yaraa kittens okay hadda maxaan leenahay maxay kan lambar ma wato soo maaha laakiin xaggan s ka wataa okay marka wuxuu noqonayaa jamac okay jamcan waxaanu isticmaali jirnay there are kittens under the table bisada ayaa miiska hoostiisa ku jira okay so mar walba waxaan eegaynaa waxaana xukumo waa maxay waxaan tilmaamayno shaygan aan tilmaamayno ma jamac baa mise waa mufrad ama waa shay keliya hadduu jamac yahay there are baan isticmaalaynaa hadduu singular yahay waxaan isticmaalaynaa there is okay jamac saan ku gartaa jamca waxaa ka horeeya lambar sida 3 4 5 2 oo kala ama wuxuu wataa s ama marka qaar labadooda waa wataa ama labadooda buu wataa ama mararka qaar mid baa laga tagaa midka kale wataa okay hadduu lambar wato horta s ta wadanaya mar walba laakiin haddaan lambar ka tagno s ta aad ku karnaysaa laakiin hadduu lambar wato hadduu shaygan jamac yahay mar walba s ta way la soconaysaa laakiin hadduu bilaa lambar yahay s tonka laakiin lambarka haddii laga tagay haddii kale oo shayga jamacaan ka dhigaynaba s taas mar walba la soconaysa s ta ka eg kadibna lambar ka eg okay intaas ayaan kusoo gabaynayna cashirkeena maanta cashirka dambe wuxuu noqon doonaa exercise insha allah okay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh